ninbaa waxaa la yidhaha aabbihiisaa dayn lagu lahaa ninbaa u yimi odagii buu qabsaday kolleejka ku daynteedii isii xoolaad ii qaadatay isii ma hayo odagu wiilkii unbaa baraarugay war imisaa ku leedahay aabbahay intaasaan ku leeyahay buu yidhi xoogaa yaruu rabay inuu ku guursado oo uu muddo aruurinayay oo intan aan wada dhammayn weliba buuxinaynin buu markiiba intuu guriga galay iyo intii uu hayo dhan u soo qaaday 3 meelood oo meel bay u gaadhay inay dayntii ka bixiso oo yidhi intan sii qabso maanta kadib dayntad aabbahay kulahayd anaa igu leedahay mar dambe halla hadin aabbahay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala faraj u furi doona waladka saalixa markuu waalidkii uu wanaag u sameeyo shaki ma leh in faraj adduun intaan aakhiraba la gaarin rabbi inuu u furahay maalinkii xigay baa nin ordaaya wiilkii u yimi wuxuu yidhi nin taajir oo fulaan la yidhaahdo ayaa raba in nin shaqo uu u dhiibto aamin ah oo tilmaamahaasuu igu xidhay ninkaasuu yidhi ii raadi waxaan u malaynayaa adiga inaad hawshaa aad ka bixi karto iyo mas-uuliyadda hawshaasaan kula rabaa buu yidhi ninkana xoogaa yar buuba iska qaataayo waa kan noloshiisa wuxuu ku maarayn lahaa iyo aasaasiyaadkii nolosha muddo ururinaya oo faraha ka saaray wuxuu yidhi bal waayahay iigee ninka aad sheegayso ninkiibuu u keenay ninkii taajirka ahaa carabtaasay qisadu ka dhacday markuu arkay ninkii oo soo socda wuxuu yidhi ninkan raadinaya ninkan waay maba yaqaanba wuxuu yidhi ninkan raadinayay oo aan kuu diray oo waaba ninkan buu yidhi oo yaa kuu sheegay ilaahay baa ku ilhaaminaya muqalliba alquluub ilaahay waaye subxaanahu wa tacaala markaasuu wuxuu yidhi ma shaqaysaa haa buu yidhi maxaa mushaar qaadataa intaasaan qaataa 3 laab buu ugu daray wuxuu yidhi intaasaan horta mushaar ku siin kow laba wuxuu yidhi waxaan ku siin 6 bilood oo horumarina waxaan kuugu dari buu yidhi gaari iyo guri aad degto wiilkii oohin buu qabsaday farxaddu markay kaa badato mararka qaar way kaa ilmaysiinaysaa markaasuu wiilkiin baa wuxuu yidhi abshir yaa abataah aabbahayow bishaarayso dayntii baa ku taagnayd ninkii taajirkaha wiilkuu yidhi maxaa kugu dhacay maxaad la oyday oo maxaad ka wadaa waxaan aad hadalkan aad tidhi qisadii buu u sheegay shalay ku dhacday markaasuu ninkii waa nin khayr badan oo muxsin ah wuxuu yidhi inta aabbaha lagu leeyahay oo dhanna waa kugu dari hadda ordoo ka bixi intaa keliya kuma joogsanina wuxuu yidhi faa'iidada xoolahayga ka soo baxda sanadkii 10% baad leedahay haddaad si fiican u shaqayso sanadkii koowaad wiilkii wuxuu faa'iiday 10% uu sheerka ka siiyey wuxuu faa'iiday malaayiin adduun baa ilaahay u furay waalidkii waa ka ducaystay yani waxaa iyo wax la mid ah iyo marka uu waladku dadaalo waalidkii hoos u eego maxay u baahan yihiin caafimaadkooda ka warhayntooda baarinimadkooda intaa iyo ka badanba addoonku wuu heli walaa shaka fii dalika wax badanoo qisasa la arkay wax badanoo qisasa oo ku saabsan walad waalidkii ixsaan u sameeyey markiiba ilaahay faraj ugu furay ayaa la arkay xagga kalena haddii aad ku caasido haddee dhibaato adduun iyo mid aakhiraba lugahaadaa ku doonatay